waxaa noo suurta gashay fursadna u ahayd golaha inaan ka wada hadalno arrimo masiiri ah iyo xaaladda ka taagan gobolkeennii. shirkan baa imanaya iyadoo waddankeennii xaalad abaareed iyo xaalad siyaasadeed iyo xaalad dhaqaalo adag uu ku jiro, intabana salka uu ku hayo maamul xumo meesha ka jirta. 3 sano lasoo dhaafay ee isbeddelku sheegu meesha uu ka jiray waxay ku timi shacabka oo go'aansaday in ay waxyaalo badan xeeriyaan u dulqaataan, iyadoo cadaas badan la saarayo ONLF door biday inay iska dulqaadato. laakiin dulqaadku xad buu leeyahay. maamul xumadu waxay keentay maanta in dadkii la dafiro even dhimashadoodii. goluhu iyo jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya shirkii ay 2 cisho ku wada jireen waxay isla soo qaadeen in loo baahan yahay in la mideeyo quwadaha Soomaalida si dantii Soomaalida meel laga soo